السلام عليكم أصحاب السلامي ومركل إيه صاحبكنا الصعو ميديا channel كنا مركل ayaan kusoo gudbi doonaa muuqaal cusub halkan waxaa kusoo gudbinaa wixii soo aragnay waan ku wada falanqeynaa maantana waxaa miiskii noo saaran taxano cusub oo soo baxay reviewgiisa ama falanqeyntiisa qaybta iyo waxyaabaha ku dhacay dhacdooyinka cusub ee qaybaha kale soo socda taxanaha 17 jir waxaana iska leh kanaalka halkaas oo lagu soo diinayo haddana waxaan fiirin doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee xalqadaasi aan ku aragnay iyo xalqada xigta waxyaabaha aan filayno haddana waxaan ku bilaabaynaa halyeeygiina oo ku jiray aras kaas oo ku noolay xeraha agoomada oo kasoo tagaya wuxuu imaanaya magaalo kale si walaalkiis u raadiyo meeshaas wax kala kulmaya gabadha la yiraahdo Leila kadib markii iskuulka dimaado waxaaba uu difaacaya wiilkaas oo ay fududeynayeen Tiom iyo asxaabtiisa halkaas ayana ka bilaaban doontaa Tiom iyo aras cadowtinimada sidoo kale Denise hooyada dhashay oo Nuuraan iyo mudan Hakan ayagana waxaa leeyihiin xiriir qarsoon kaas oo u dambeyn soo bixi doona xalqada dhexdeeda kulay taxanaasi xog buu ku socdaa isla markii sir badan baa hore lagu ogaanaya sidoo kale waxaa arkanaa Tiom in uu dhanka aabihiisa ka caqdadiisan yahay oo xitaa saaxiibkiisa oo arkay in aabihiisa uu labisay markaarko wuxuu kalifayaa yani ilaa heer wuxuu gaaraya oo badda ku tuuro yani baraag gurigooda taale inuu ku tuuro sidoo kale dhacdada ugu muhiimsan ee ku jirto xitaa in markii Tiom oo guriga meel Belgium ka dhiganayo aabihiisa uu soo galayo xitaa uu sheegay in hantidiisa oo asiga la isticmaalo laakiin midka kale aras maadaama uu meesha ku fududeynayo oo sheegay in asiga uu yahay boqorka dhabta ah halkaasna uu cuqdad kaga sii qaadayaba ninkan lagu magacaabo aras dagaalkoodana meeshaas ayuu ka sii kululaanaya sidoo kale midda Nuura iyo iyadoo wada hadlayaan mudanaha Hakanka ayaa waxa maqlaya Dion saaxiibkiisa kaas oo loo maleynaya in qof kale uu maqlayo sirta sida ku arkayna balse waxa arkayna gadaal markii uu asiga soo xasuusto qofka sirta maqlaya inuu asiga yahay sidoo kale waxa arkayna Dion in uu aabihiisa kala wareegay meesha mikrofoonka markii ay soo jeedinayaan oo xalfadooyinka ay qabaan oo ka sheegay meesha inuu jiro wiil kale kaas oo asiga wiilkiisa ka doortay balse markii ay u maleynayeen in sirta weyn uu ka shafi doono oo u maleynayeen qofka uu arkay yani sirta qofka arkay maadaama hor aan nolol tusin aan u maleynay inuu asiga yahay kadib waxa wacdaatay inuu saaxiibkiisa ahay asagana sirta uu sheegay waxa way araska ayuu shacabka ku jeediyo meesha dadka jooga oo ku jeediyo waxa ka dhigay in aabihiisa oo asiga wiilkaas ka dooranay wiilkaas oo rabo bedelkiisa taas darteedna waxa uu marsiinay qaab oo masqash ayuu inuu wajiga u geliyo ku dayaya markuu meesha aras madan kadib uu ka fuqayo oo iska deenaya sirta ugu weyn ee saxaqadan dhexdeedana fashil mid tagtay masa oo lees dhig karo tan si ku dabeed oo waa in naagta asiga uu qabeeyo mudanaha Hakanka oo ayadana ay ogaa doonto maadaama ay urku sheegtay in warata Hakan ay hor ugu keentay cadeyntii oo ogaa doonto xoo ahay in jaabkiisa uu galiyo xoo ahay baashi urku lagu baaramaya oo jaabkiisa gashtay ayadoo kale u si dhiibeyso feero geed iyo masaadi soo dhaq waxay ogaanaysaa in uu jaabka uu jiro bahalkaasi waliba in ur loo leeyahay kale ma qaatan soo ku xali doona ninkaasi balse haddii uu maaragtay xariif meesha ku soo gubtay yahay waxaan hubaa inuu ka baxsan doono midaan meelaha ugu muhiimsan waa inta iyo in qofkani ka soo wacay markasta taleefanka aras oo walaalkiisa u sheegayo inuu haayo xitaa marka xafladda uu joogo xitaa wuxuu sheegay inuu joogo meesha loo baahnay qofka asigana yuu noqon doonaa waa waxyaabaha ugu weyn ee loo daawanayo taxanaha qaybta xigtana loo sugayo sidoo kale aras markii saaxiibkiisa Tomaan xoo ahay Tiom iyo asxaabtiisa si uu ugu aaro asigana waxa uu ka daba imaanaya maadaama Denise soo sheegto waxa ka daba imaanaya araskii waxa ka daba imaanaya Tiom waliba meel banaan ay labadu isku helayaan ayagoo isla dagaalay ayaa aras wuxuu arki doonaa marka in walaalkiisa gumayska oo jeclaa in midkan ayadoo taatu ugu dhigan yahay midaas inta ku mashquulsanay ugu fikirayaba mase xasuus galay Tiom wuxuu mid ka kala doonaa aras caloosha taxanaana qaybtaan halkaas ay ku dhamaan doontaa aras oo ogaaday in walaalkiisa uu yahay kan kulli uu ka shaqeeyay hadda ma uusan ogaan xalqadaha soo socda ayuu ku ogaan doonaa inuu kan walaalkiisa yahay wali baaritaanka buu wadaa marka laakiin hadda tan hordhac way in walaalkiisa uu yahay kan hadda kaliya daawadayaasha la tusaa oo wali ma uusan ogaanin marka gudaha taxanaha wali lagu ogaan laakiin daawadayaasha si arkaa macnaha waa igihiisin maho waxa jiray 4 taxano oo soo baxay xagaagan balse kan ugu horeeyay oo ahay haddana saameyntiisa waan aragnaa taxanahan aad baa loo soo dhaweeyay isagoo qaybta koowaad kaliya ayaa waxa daawatay malaayiin dad ah YouTube-kii asiga la soo gelinayna 500,000 ayuu hadda sii marayaaba laga yaabo waqtigan video soo duubay milyanka inuu ku dhow yahay mase wax yar ugu dhiman tahay balse 500,000 inuu dhaafay taasoo inaa huba jeclahay
aad baa loo soo dhaweeyey, shacabka sheekada way ka heleen. Qaybta koowaad ratingkeeda waxay ahayd 3 balse ratingka qaybta kale aad bay uga sareysay midii hore, oo maxaa yeelay intii laga filayay in ka badan ayuu hal mar si laba kaca u kacday sheekada, waliba qaybta labaad. taa waxay ka dhigan tahay qaybtan koowaad qaybta labaad inay kasii darnaa doonto. ayadana qaybta labaad saan oo kale ayaan inta ugu falanqeyn doonaa. taxanaana wuxuu noqday mid hadda ka dhexeeya caalamka. waxaa wadaan dhalinyaro cusub kuwaas oo hadda soo baxooyo, balse sheekada inta badan waxaa gadma waa sheekada. waxaa jira kuwa waaweyn oo ay hadda dhulka u dhigeen madaxa. ilaa hadda heer taxanaa waxa uu gaaraya markii qaybta labaad ee soo baxday, markii la arkay saamayntiisa in hadda habeenka axadda keligiisa la daawado oo taxana kale uusan jiri doonin. way jiraan kuwa habeenka axadda lasoo bixi jiray, laakiin kuwa dhammaaday iyo kuwa kale ay kala noqdeenba. hadda marka firaaqo wuxuu haystaa qaybta saddexaad oo ka dari kara labada qaybba, maxaa yeelay qaybta saddexaad waxaa la daawan doonaa axadda soo socota, waxaana la daawan doonaa keligiisa oo xalqo kale mise taxano kale lama tartami doono. taa waxay fursad weyn u siinaysaa hadda meeshuu maraya inuu kalaba kaco, kasii jabaarmo ilaa heer uu gaaro hadda inta laga filaya in ka badan. hadda maadaama tuturkiisa 5 gaari, waxaa laga filaya hadda tuturkiisa 6 ilaa 7 inuu gaari doono. marka waa sugaynaa qaybaha cusub ee soo socda wixii ka soo baxo. intaan kaga kulmayno muuqaalkiisa xigana iyo falanqeynta qaybta xigta ee labaad. kabarka nagu filaadna waxaa gudbayna kuwa kale. sidoo kale hadda gudubna akhbaaraadka kale cusbay waxaa jiro in taxanaha abaabul oo weli sii socon doono. yani waxaa la isla dhexmari jiray oo dhamaanaya, balse hadda may taxanaha uu sii socon doonaa. wuxuu lahaan doonaa season 7 waxaase wada doono tolga Taritash. marka ninka ilaa hadda taxanaha uu sii wada doonaa. taa waxay ka dhigan tahay inuu jabiyo iskoor aad u weyn, maxaa yeelay labadii hogaamiye ee ka horeeyayba Sardaar iyo Murad Yildirim labadaba way ka baxeen taxanaha, oo mid walba waxa uu saxiixay 2 season. mid walbana 2 season oo saxiixay unbuu sii waday oo dhammaystir, wax kale kuma uusan darin. laakiin markii la soo gaaray tolga Turkiisa iyaga ama Kurt ama sida kale u taqaanidba, daawadayaasha aad bay uga heleen. haddana waxaa loo sii yeeli doonaa season kale, taas oo weli uu sii wadi doono inuu sii wado taxanaha oo sii jilo, kama bixi doono. hadda seasonka todobaad xataa asaa sii wadi doono. tanna waxay ka dhigaysaa mar kale in uu taxane oo haddana yani oo la jilo 3 habeen yani saxiixiga. haddii markaan kale taxanaha todobaad yani seasonka todobaad taxanihiisa ee abaabul haddii atirish kale ay soo baxdo, maadaama hadda 2 atirish saan kusoo laqay, waxay noqon doontaa markaas mar kale iskoorka la jabiyo oo taxanihii ugu dambeeya uu sameynaya oo baaba ahay waxa uu la sameeyey 3 atirisho oo mid mar walba 3 atirisho kula jirtay. kaa weli ma aana daawan mana arkin, laakiin sida la sheegay sida ayuu ahay. haddana kan haddii sida la sheegay ay noqoto waxay noqon doontaa markan iskoor jabiyo oo 3 atirisho hal taxano ku wada qarnamsado. marka ninkan kabtiisa nooma gashay, laakiin waxaa la sheegay inay ka bixi doonto gabadha kale kula jirtay ee la jilaysay. marka taa way ku daynaysaa, laakiin kuwa kale way joogaan. inta badan durarka ma baxayaan sida Kurt Kurkood oo kale ma baxayo, Xamdi oo kale ma baxayo. Xamdi Kurkood la joogta saaxiibtiisa ayadana ma baxayso oo Ganshaalaha miyaa u dhalay. marka dad badan ay ka bixeen, laakiin kuwa qaarkood ay ka bixi doonaan taxanaha abaabulna. intaas anaga cusub oo ka cusub xog ahaan adhehe. sidoo kale waa u dhammaaday seasonkiisa si toos mana arki doono mar kale. toos ayuu inoo daayay seasonkan ilaa iyo 2 bil ama 3 bil kadib. waxaan ku dhammaaday xalqada 184 ay Taj iyo Elgin ay intay taageerayaasha ka badbateen. waxay barayaan labadan mase xiriir toos haddii lahaaninin walba xitaa kaamirada maaragtay shaashada xiriir noogu jiraan iskeenan. kadib Elgin soo bood waxay dhahday ninkan waaba in adeerkayga waa dhahday. taasna macquul ma noqonayso yani inuu xiriir dhexmaro. marka daawadayaasha iyo taageerayaasha labada aktarba waxay ku noqotay lama filan in labadooda ay qoys yihiinba. marka indhahayda taageynaya adinka ma ka warqabteen xaaladan iga dabageeyo. maalmahan ba la isku kaco yani la isku yaaco wareegayso oo labadii ku jirtay Ratli ama dhulka hoostiisa 2 aktar isaga yaacday. waa idin sheegi doonaa. waa Akaan Jilbi iyo Olko Hilaal. waxaa la sheegaya marka inay fasax qaateen oo safar isla aadayeen labadooda. halkaas ayaa marka laga soo qabtay oo maaragtay nolosha lagu hayaa. sidoo kale yani kulubeen gabadhii ku canbaxday walaalaha magaca Aasiya, ayadana sidoo kale Suu Burjo waxaa la sheegay ayadana inay xiriir la leedahay ninka fanaan ah asana lagu magacaabo Buturay Emri. sidoo kale waxaa la sheegay Cali iyo Zainab ayagana inay wax ka dhexeeyeen. waa kuwa ku jira taxanaha Tashtaag Budniis
waxaana ku kala jiraan kokaan oo wuxuu la safeeyaan shariif fartuuna waana wuxuu ahay reer fartuuna. midan kalena waa mida caadil ku jaariyo walaashiisa ku jilaysay faaduma mise faatima ayadana waxaa Zainab marka labadooda ayagana waa xambaa la wada jiray kulli dhab bay noqotay arrinta wuxuu ahay waxaa la weydiiyey ninka jilaa shariif fartuuna dhehna anagana kulli wuxuu dhahay faraas kuma jiro dhe waxay jaashada banaanka ana shaqadeeda ma hodhe yaa faraha dadkana ma la gelaya marka ninkaas xogo waa ka dhuunta arrinta laakiin kulli wax baa jiro xaflada tagayna la sheegay shams bay isdhaafsadeen marka hantaasna waa wareegis maalmaan ayagana maaragtay kiis kala yaal marka kalkan maadaama maaragtay ay taaj iyo maaragtay elgin taageerayaasha isku jiidooyeen meeshaana wax ka arkeen marka waxaa isleeyihiin umlana labada scriptin isku geeya sheekadeena wadaanba sidoo kale afayman hadduu waxay saacatay mashruuc cusub maadaama kii hore iska kasashay oo ahay filimka hadda OGM Pictures bay heshiis la gaartay waarkana kale waxay soo wado haddii ay u kala kacdo kaasa haddii ka fadhiisatana marka tashjaab budnis isagana qaaleena meeshaas ku kala kacsane anad marka muuqaalkan waxaa kusoo gabagabeynayna labada xaq ugu dambeysay oo in practical oo noqday laatan seejar wiilkan dhalinyarada waxaa ku baranay xoogaa tacana godka ama ku jir waa wiil aad jilinkiis u hersareeyo anigaasaa igu horeysay kaasaan ugu dambeysay wax damba ka daawado adaa haddii taxana kale ka daabatay inagu reeb dhanka hoose commentiga sidoo kale maanta waa 2 sano waxaa kasoo wareegatay taxanii aad ku xiiso badnaa Kardashian dhamashihiisa oo wuxuu dhamaaday 2024 bisha aan hadda ku jirno waqtiga ay mareysay gunti iyo gabagabada muuqaalkeena isla soo gaarna waxaan idin leeyahay muuqaalka laakiin nusara haddii aad naga mid noqo intaa kaga kulmayna muuqaalkiisa xigana sidaas nabadgelyo kuna salli xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam